war degdega dagaal ay isku ruqaan sameyn canfarta iyo Soomaalida ayaa ka qarxay ee dalka Djibouti halkaas oo isku farasaareen sabarkaan oo ka dhashay khasaaro xoogan oo ku jirta burbur hatiyadeed dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay iyadoo canfarta ay qaadeen weeraro culus isla markaana gudaha caasimadda Djibouti ee dalkaasi Djibouti ay ku fuliyeen weeraro adag ay ku weerareen Soomaalida iyo si la mid ahba saldhigga ciidamada militariga ee Djibouti halkaas ku tiilay weerar adag ku qaaday iyo midka booliiska ciidamada canfarta ayaa nolol ku soo qabtay ciidamo oo Djiboutian oo Soomaalida halkaas joogtay iyadoo nolol ku soo qabtay in ka badan 10 ama 20 tirada sida lagu sheegay dhinaca kalena dhaawac iyo dhimasho isugu jirta ay u geyseen tiro konton u dhaafaysa weerar culus oo ay qaadeen canfarta isla markaana ka fuleen gudaha dalka Djibouti ayaa soo cusboonaaday saacadii ugu dambeeyay isla markaana baraha bulshada ku faafay muuqaal goob burbur ay ka socoto ay isweerareen shacabka canfarta iyo shacabka Soomaalida beesha Ciise oo la doonayo in kursiga laga tuuro iyo arrimo kale oo xasaasi hadaan ugu cusubtahay nagu soo biir like de oo subscribe da saar channelka asxaabtaada sii gaarsii share garee muuqaalka aynu guda galno canfarta ayaa weerar culus ku qaaday ee dalka Djibouti xilli halkaasi saldhigga ee booliiska iyo mid militariga ay weerar culus ay ku qaadeen hal mar qudha isla markaana ay dileen ciidamadii halkaasi wada joogay ayna laayeen dhinaca kalena ay u qabsadeen maxaabiis oo ay qafaasheen waxaase la sheegaa in halkaas ay ka dhashatay khasaaro xoogan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed gudaha caasimadda Djibouti oo ay fuliyeen weerarkaasi dhinaca kalena shacab Soomaaliyeed ayaa isku soo baxay oo careysan isla markaana caradooda ay kula dul dhaceen beesha canfarta oo halkaas joogta iyo canfartii oo jawaab adag bixisay ayaa geysatay khasaaro xoogan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac shacabka canfarta ayaa gaartay go'aankii ugu dambeeyay oo uga hortagi lahayd madaxweynaha imika ka arrimiya ee dalka Djibouti muddo nus qarni ah Ismaaciil Cumar Geyle iyadoo ay sheegtay inaysan marba aqbali dooneen Ismaaciil Cumar Geyle halkaas uu ka arrimiyo iyadoo ay fulisay weeraro culus kuwaas oo ay ku geysatay ugu dambeyntii sababtay khasaaro xoogan ciidamada Djibouti ayay qaarkood maxaabiis ahaan loo qafaashay kuwa booliiska iyo militariga canfarta ayaa ugu dambeyntii qabsaday ciidamo oo Tirebela kuwaas ay u kaxeysay dhinaca iyo duurka iyagoo sheegay inaysan soo deerin ilaa iyo Ismaaciil Cumar Geyle xilka uu ka dago amaba madaxtooyada inay lug ay ku gali doonaan isla markaana ay soo qaban doonaan Ismaaciil Cumar Geyle qorshahan halis ayaa la sheegay in markii horeba Somaliland ay ku taageertay sidii reerkaasi canfarta ay kursiga ula wareegi lahaayeen iyadoo muddo sanadooyin ah ay halkaasi banaanbaxyo ka dhigayeen qorshahan oo halis ayaa la sheegay kadib markii wufuud ka socotay canfarta ay soo gaartay caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland isla markaana arrimahan ay kala fadhiiseen madaxweynaha ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ay kala hadleen qorshaha culus isla markaana sidii xilka looga tuuri lahaa ninkay dictatorka ay ku tilmaameen Ismaaciil Cumar Geyle oo muddo nus qarni ah ee ku dhawaad uu ku fadhiyo kursiga ee madaxtinimada ee dalka Djibouti qorshahan halis ayaa la sheegay isla markaana ay wadaan canfarta iyagoona wacad ku maray inay sifeyn doonaan gabiyaanba magaalada iyadoo caasimadda dalka Djibouti gabiyaanba la kala xiray dhinaca kalena booliisku ay xidheen iyadoo ay adag tahay in la helo xogaha rasmiga ay ka imaanaya ee dalka Djibouti kadib markii ciidamada dalkaasi ay kala xidheen gabiyaanba goobyada ugu muhiimsan isla markaana beesha canfarta ay fuliyeen weerar adag dhinaca kalena ay ku beegsadeen ganacsatada Soomaalida iyo guryaha Soomaalida canfarta ayaa la sheegay in mar qudha ay soo wada baxeen isla markaana iyagoo ku hubeysan midka ugu yar uu sitana qoriga AK47 waxaase la sheegaa in hubkan Tirebelka uu kaga yimaaday dhinaca Somaliland ayaa garab ku siinaysa isla markaana sidii loo horin lahaa colaadaasi Ismaaciil Cumar Geylena hore ay u sheegeen inay Somaliland ay doonaysay inay xilka ay ku tuurto waxaase la sheegaa in arintaas sabab ay u tahay beesha canfarta ee joogta ee gobolka Awdal ee Somaliland halkaas ay doonayeen canfarta in dhulka ee gobolka Salal ay ku daraan ee Soomaaliya iyagoona ay sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul Soomaaliyeed isla markaana aysan aqoonsaday wax la yiraahdo Somaliland dhinaca kalena Ismaaciil Cumar Geyle ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan ee aqoonsiga Somaliland isagoo sheegay inuu gabiyaanba aqoonsaneen aqoonsigaasi laakiin uu aqoonsan yahay in Somaliland ay tahay gobol ka tirsan Soomaaliya taa oo noqotay caqabada ugu weyn mudooyinkii dambe Ciisaha iyo Samaroonka isfarsaaray ayaa la sheegay in Ismaaciil Cumar Geyle oo taageeraya Ciisaha sidii halkaasi loogu wareejin lahaa mar kale dawladda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geyle ayaa la sheegay inuu ka qayb qaatay dagaalka beesha Ciise ay kula jireen ee maamulka ee Somaliland kadib markii dhowr dagaal uu ka qarxay ee dhexdooda isla markaana iska laayeen
waxaase la sheegaan Ismaaciil Cumar Geele uu ahaa qofka ugu muhiimsan ama mashiinka ay ku dhaqaaqaan ee beesha ciise markaana ay ku fulin jireen weerar gaar ah oo gudaha dhulka Somaliland. imika Somaliland ayaa la sheegay inay diyaar u tahay iyadoo ay taageerto canfarta isla markaana wacad ay ku martay in canfarta wax kasta ay siin doonto. hubkii ugu horeeyay ayaa gaaray gudaha caasimadda Djibouti iyadoo si qarsoodi ah halkaasi loo geeyay markaana la sheegay in hubkan ay soo dhiibeen ee reer Somaliland aqiladooda iyo si lamid ah dawladooda ay ku taageereen canfarta inay halkaasi ay ka dagaalamaan isla markaana xilka ay ka tuuraan Ismaaciil Cumar Geele. gebihaanba waxa cakiran isu socodka gaadiidka iyo bulshadii ganacsatadii iyo si lamid ah waxa gebihaanba bandhow lagu soo rigay ee dalka Djibouti xilli halkaasi adag tahay in la helo xogaha rasmiga halkaasi ka jira. laakiin muuqaalada baraha bulshada lagu faafay shacabka cabanaya iyo canfarta muuqaalo ay faafisay ayaa muujinaya in ay diyaar u yihiin gebihaanba inay qas ay ka wadaan gudahaan dalka Djibouti ilaa xilka ay ugu tuuraan madaxweynaha imika ka eermiya oo ay ku sheegeen inuu yahay dictator regime Ismaaciil Cumar Geele oo halkaasi xukumayo muddo nus qarni ah. waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xilka ay ka tuuraan haddii canfarta qof kamid ah oo madaxweyne u noqdona oo dalka xasilooni ku soo laaban doono. dhinaca kalena canfarta ayay Somaliland u balaqaaday in haddii iyadoo ay ku guuleysato halkaasi ay aqoonsi rasmi ah siin doonto Somaliland isla markaana Djibouti ay noqon doonto dalkii labaad oo aqoonsaday Somaliland. dhinaca kalena ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay aqoonsadaan Somaliland Djiboutina ay ixtiraami doonto madax banaanida dhuleed iyo midnimada Somaliland iyagoona wacad ku maray canfarta in diyaar u yihiin in Somaliland ay la dhaqmaan daris wanaagnimo isla markaana ixtiraamaan xiriirka diblomaasiyadda. waxay sheegeen inay ka dhicin doonaan Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka imika Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinaca kalena ay sheegeen inay siin doonaan ciidamada dalka Djibouti ay difaaci doonaan Somaliland iyo inay ixtiraami doonaan madax banaanidooda. waa haddii canfarta ay noqdaan madaxweyne ka arrimiya ee dalka Djibouti iyadoo Somaliland tani ay u aragtay fursad culus ayaa sheegay inay taageerayaan isla markaana garab buuxa ay siin doonaan canfarta sidii halkaasi xilka loogu tuuri lahaa madaxweynaha imika ka arrimiya Ismaaciil Cumar Geele.